asalaamu calaykum. dal mise dad ma jiro dal dunidan ku yaala oo iskiisaga dhismay ama rubadii ay dhiseen. dal waliba waxaa dhisay dadkiisa. haddaba dalka iyo dadka keebaa horeeya, keebaa u baahan in la hordhiso. dunidan casriga ee maantayna ku noolnahay waxa ugu weyneyd dowladda horumartay ay ku dadaashay waa dadkeeda. waxay maalgashadeen dadku, waxay siiyeen waxbarasho, caafimaad, hanti, dabadeedna waxaa lagu dhiirigeliyay inay fekeraan wax cusubna soo saar. bal adiguba fiiri oo ka feker inta dowladda horumartay dunida dibadda uga imaan horumarka, balse iyaga dhexdooda ayuu ka yimid. bal fiiri Singapore oo ah dowlad yar oo ku taala qaaradda Aasiya oo shalay ahayd dhul biyo fariisad ah, dad aan waxba baran, dhul aan kheyraad dabiici ah lahayn. marka dadkooda isku tashade oo hogaankooda talada uga dambeeyaan, maanta waxay noqotay mid ka mid ah dowladaha ugu horumarsan dunida, baasaboorkoodana uu yahay midka ugu awoodda badan dunida. dalka sida ah waxa uu maalgashaday waa dadkiisa. shaqadii koowaad ee ra'iisul wasaare Lee Kuan Yew uu qabtay waa inuu dadkiisa waxbaray. dhanka waxbarashada maanta waxay Singapore kaga jirtaa kaalimaha ugu horey, waxayna ka horeysaa wadamo waaweyn oo dunida. Dr. Mustafa Kamal Maxamuud oo ah aqoonyahan u dhashay waddanka Masar ayaa isbarbardhig ku sameeyay dalka Masar iyo Japan. waxa uuna sheegay tirada dadka dalka Japan ay 120 milyan tahay, kuwaas oo ku nool dhulka yar kan Masar. Dr. Mustafa ayaa yiri dalka Japan waxa kaliya uu ka faa'iideystay waa kheyraadka uu haysto oo ah dadkiisa, ama waxa loo yaqaan human resource iyo waqtiga. kheyraadkaas oo dunida dalaan haysan aanu jirin. dalka Masar ayuu yiri dunida waxay u dhoofisaa gaaska dabiiciga, dhul beereed ballaaran iyo kheyraad kale oo badan waa ay leedahay. haddana dadkeedu waa sabool, weli gaajooda cabsi joogta ayay ku haysaa. waxa kaliya dowladaha dunida isku dhaafeen waa ka faa'iideysashada iyo maalgashiga la maalgashada dadka aqliyadooda, maskaxdooda, muruqooda iyo maalkooda. Soomaalidu waxay tiraahdaa dal waliba dadkiisa ayaa dhisa. dalalka Mareykanka, Canada waxay sanad waliba qaataan malaayiin dad ah. sababta ugu weyn oo ay dadka ay ka doonayaan ayaa ah inay noqdaan dad wax soo saar leh, dalkoodana wax ku soo kordhiya. arday Shiineys ayaa waxa la weydiiyay waxa uu jecel yahay, waxa uu ku jawaabay inuu soo saaro taleefankii ugu dambeeyay ama ugu casrisan dunida. halka arday kale oo Afrikaan la weydiiyay waxa uu jecel yahay, kuna jawaabay inuu yeesho kuna xaragooda nooca ugu dambeeyay taleefan. waa farqiga u dhaxeeya dadka aqliyadooda la maalgashaday iyo kuwa aan la maalgashan. habeenkii afkambiga oo Turkiga ka dhacay, kuwa naftooda horay oo beebayaashu isku dhagayay waa dad. marka uu Mareykanka hoos u dhigay qiimaha lacagta liiraha ee Turkiga, kuwa dollarka gubayay, iPhone-nada jajabanayay waa dad. laakiin waa dadkee? waa dad la maalgashaday oo wadaninimo lagu beeray. dal waliba dunidana waxaa cudud u ah dadkiisa. haddaysan dadka dhisan, cid ay sugayaan oo dhisaysa ma jirto. cid sadaqo waddankaaga kugu dhisaysa ma jirto. waddanka Rwanda uu ka dhacay xasuuq ba'an, halka oo ay isku dagaalayeen muddo 2 qowmiyadood oo wada dega waddanka. markay iscafiyeen dadkooda ay walaaltinimo iyo qaran ayaa ina deeqa marxaladooda ay gaartay. xaalku maanta waxa uu noqday in waddanka Rwanda uu noqdo waddan indhaha lagu wada hayo, horumar ballaaran ka sameeyay, kaas oo ka tilmaaman qaaradda inteeda kale. Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre maalintuu dalka ka baxayay waxa uu yiri dal waan ka tegay balse dadka ma tegin, oo micnaheedu yahay dad dalkooda ilaashada oo kala saaraya shakhsiga iyo dalka. oo haddii aan dalkan ka tago iyagu isku tashan dalkooda ilaashanaya kama tegin. haddaba Soomaaliya yaa laga rabaa inay dalkan dhisaan, ma inaga mise shisheeye ayaa inoo dhisaya.